daawade halkan waa M252 kusoo dhawo muuqaal kale haddii aan su'aal ku weydiiyo dhib ma ku qabtaa in telefoonkaaga uu maalin walba kaa qaato waqti badan aad soo qabato jeegarayso fariin kuu soo dhacdo ogeysiisyo notifications kala duwan kuu soo dhacaan isla markaana aad aragto inaad iska goyn weysay oo aad waqti badan ku bixisay adeegsiga telefoonkaaga waxaan filayaa inay jawaabtaadu haa tahay sababtoo ah waa problem guud ama waa dhib guud oo dunida oo dhan maanta ka jira sidaa darteed waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugu soo tabiyo dhowr qodob oo aan isleeyahay waxay kaa khafiifin karaan culayska ah inaad waqti badan ku bixiso telefoonkaaga mar walba soo qabato oo aad jeegarayso isla markaana habeenkii aad la seexato qodobadaas qodobka ugu dambeeya adiga ayaan kaaga tegi doonaa waxaan kaa codsan doonaa inaad bal adigana nagu kordhiso qodob aan uga hortegi karno in taleefanadan waqti badan naga qaataan maalin walba waxaan rajaynayaa in qodob xiiso leh aad nagu soo kordhin doonto waxaan ka bilaabayaa qodobka koowaad oo aan u arko inuu yahay qodobka ugu muhiimsan oo haddii aad samayso aad waqti badan ku badbaadsan karto aad ku bixin lahayd telefoonkaaga waa qodobka ugu horeeye iska xir notificationka ama ogeysiisyada inta badan applicationska aad isleedahay way ku mashquuliyaan waqti badanna oo ay kaa qaataan sababtoo ah meeqa jeer ayaa laga yaabaa in telefoonkaaga oo meel iska yaala adigana aadan rabin inaad isticmaasho laakiin notification kuu soo dhacay dartiisa marka aad soo qabatay aad waqti badan ku bixisay way dhacdaa inta badan sidaa darteed iska xir inta badan notificationska meelaha ay kaaga soo dhacaan ood isleedahay way ku mashquuliyaan tusaale ahaan aniga oo kale waxaan iska xiray oo muddoba iga xiran notificationska whatsappka messengerka facebooka instagramka tiktokka twitterka iyo mid kasta oo notification iga soo dhici jiray anigana aan telefoonkayga jeegarayn jiray waqtina ku bixin jiray qodobka labaad qodobkan waxa uu ku anfici doonaa haddii aad tahay dadka inta badan habeenkii taleefanada adeegsada gaar ahaan marka ay seexanayaan dabcan 30 daqiiqo ka hor inta aadan seexanin waaba qasab ama waan kula talin lahaa inaad telefoonkaaga iska dheerayso qodobkan haddii aan gudaha u galo iska dheeray ama meel adiga aadan gaari karin iska dhig telefoonkaaga marka aad ugu talagasho inaad seexato ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor haddii laakiin telefoonkaaga sariirtaada agteeda aad keensato kaba sii darane aad jaajarka iyo sariirtaadana isoo ag dhigato waxay u badan tahay in telefoonkaaga uu indhaha kaa dilo waqti badanna aad ku bixiso iyadoo leerka uu kuu dansan yahay sidaa darteedna halis gaara indhahaaga iyo waqtigaaba ay kala kulmaan telefoonkaaga waa qodobka saddexaade iska xir ama iska yaree waqtiga aad ku bixiso barnaamijyada baraha bulshada sida facebooka oo kale dabcan telefoonka meel laga xira ayuu leeyahay waxaad kaliya u sheegaysaa waqtigaad ugu talagashay applicationkan tusaale ahaan 30 daqiiqo maalinkii marka 30 daqiiqo la gaaro wuu kaa xiri doonaa wuxuu ku dhihi doonaa waqtigaad ugu talagashay applicationkan waa la gaaray sidaa darteed iska xir oo waa iga tale barnaamijyadaad inta badan waqtiga ku bixiso gaar ahaan ku waqtiga kaa qasaariya ee baraha bulshada sida aad isaga xiri lahayd iyo sida aad u xadidi lahayd isticmaalkoodana horey aan muuqaal uga sameeyey qaybta hoose ee faalooyinkana ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkaas qodobkan afraad waa qodob dabcan u baahan inaad wax badan baraatikayso tijaabiso maskaxdaadana barto waa maxay ka jar maskaxdaada telefoonkaaga ma kugu dhacda marar qaar adiga oonan xitaa telefoonkaaga notification kuu soo dhicin inaad raadiso wax yar kadibba aad raadiso haddii aad meelaha ka weysaba haddana aad raadiso inta dabka kaa dhaco aad jaajar geliso aad uga daba tagto isticmaal u fariisato way nagu dhacdaa inta badan sidaa darteed isku day maskaxdaada inaad ka jarto telefoonkaaga inaad raadiso tusaalooyin ayaan ku siinayaa tusaale ahaan haddii aad arday tahay fasal fadhiso wax barato ood isku aragto inuu waxbarashada kaa mashquulinayo waxaad isku daydaa telefoonkaaga inaad jeebka geliso ama aad boorsadaada geliso isla markaana aad maskaxdaada ka jarto oo aadan soo bixinin ilaa inaad dan muhiim aad uga baahata maahe sidoo kale marka aad guriga timaado laga yaabaa in telefoonkaaga waqtiga ugu badan aad ku qaadato laga yaabaa in guriga howl ay ku taalo ama aad wax aqrisan lahayd ama aad howlo kala qabsan lahayd ama aad nasan lahaydba sidaa darteed waxaad isku daydaa markaad guriga timaado haddii aadan telefoonkaaga u baahnayn inaad meel fog geyso oo aad maskaxdaada ka jarto markaad u baahatana aad iska celiso
taa waxay ku baahaaminaysaa ama ay ku ilaalinaysaa waqti badan oo aad telefoonkaaga ku bixin lahayd qodobka shanaad dabcan waa qodob muhiim ah laakiin aniga kuuma sheegayo adiga ayaa noo sheegaya fadlan qaybta hoose nagula wadaag qodobka shanaad ee aad isleedahay waxa uu dadka ka yarayn doonaa dhibka ah in ay waqti badan ku bixiyaan telefoonkooda oo ay mar walba raaraadiyaan inta aan ku gacan haatinin waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga mahadceliyo shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya shirkadda Haleel waxaad ka helaysaa dhammaan waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo si rasmi ah ay ayada wakiil uga tahay damaanadna ay ku siinayso xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal ah qodobkee ayaad ka heshay qodobadii aniga aan kuu sheegay sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad jeegarayn doonto faalooyinka ay dadka bixiyeen laga yaabay in qodobada aniga aan kuu sheegay mid ka xiiso badan aad ka dhexesho anigoo kaaga mahadcelina waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan inta laga gaariyo muuqaalka xiga badankii nabadgelyo Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to